iyo kuul usoo hooyo tiina waa ku guuleystay dadkaygu garab taagan ilaahay subxaanahu wa tacaala baana uga maxaan ku iraahdaa mahad celinayna intii halka coins timina waa in maartay naga badan ku qanacsannahay guul weyn ku keenay dadkaygana diyaar ahaayeen laakiin maamulkiina la tartamayay baa wax micno leh meesha la ima waayay taasa keentay 4 milyan inaan madaxa kaga dhufano marka alxamdulillah rabbil caalamiin dada waxay ugu lahaayeen geemamka maaragtay ma geemam kale oo maakhira baa soo socda maakhir geemkii u dhacay geem ka weyni umana dhici doono horena uguma dhicin haddii de maaragtay magaca iyo calanka cid lagama leh dad badan baa leh haddii qof walba uu leeyahay TikTok waa la soo fariisanayaa dadkaygan ku dhex marayaa waa meesheeda cidna lagama leh laakiinse haddii magac la rabay haddii maamuus la rabay waa la soo hooyay meel aan cid gaarsiin kartaa aysan jirin baa la keenay ciddii iyadu coins doonaysa oo jeebkeeda xurubta maaragtay iyo ciddii siinaysaba waxaan leenahay dawaa la siin karaa waa caadi ama meelo kale la isu marin karaa iyadoo aanba TikTok ba khidmad ka goosan baa qofka waxa la jeceshahay xawaalada taajna ha ahaatee u dhigi kartaa laakiin game waa dhacay sharaf uu lahaa guul weyn baa la soo hooyay Soomaaliya dhan baa marka ahayd gamekii ugu taariikhisnaa buu ahaa magaca iyo maamuuska reer maakhir ay soo hoysteen yaan lagu ciyaarin baan leeyahay saasaan leeyahay ciddii iyadoo calanka iyo magaca dadkeeda ku dhex maraysa oo meelaha la fariisanaysa lagama leh laakiin anu waxaan idin sheegayaa gamekii maakhirka aan ku metelayay buu ahaa lagu midaysnaa wacdara laga dhigay arkayseen iyadoo daarood kale marka Kingfried laga reebo maaha warsangeli kaliya inuu halka maaragtay guusha ka keenay inta ka badan 20 milyan diyaar la ahaa laakiin dadkii naga soo horjeeday markay waxba keensan waayeen anagu badis baan meesha u nimi game qurux badan baa u nimi intiina waa noo qabsoomeen waxayagiina dib baan u haysanay alxamdulillah rabbil caalamiin intaas aan leeyahay dadka maqan waxa arkay dad meelaha ku soo qorqoraya qabiilooyin baa ka maqnaa kana ka maqnaa shakhsi hebel baa ka maqnaa waxaas maxaa ku raahday qiimo male waxa waaye gameka waa ciyaarnay waa guuleysanay guush kun aabbe leedahay guul daraduna hal aabbe leedahay haddii guul daro meesha ka iman lahayd baa hadal iyo waxyaabaha laga yaabaa inay iman lahaayeen laakiin guul baaba timi barood baan ku nahay alxamdulillah rabbil caalamiin cid kale oo maaragtay halakan anaa gameka metelayay anaa ku ciyaarayay cid aan maanta cuqdad ugu qabo ama ugu careysanahay maxay u iman weeday ama shakhsi ha ahaato ama reer dhan ha ahaatee ma jirto adduunka qofna lama soo baryo qofna lama soo khasbo qof walba meeshtan wuxuu ku yimaadaa iraadadiisu ku yimaadaa ciddii iraadadeeda ku iman lahayd waa ku timi ciddii iraadadeeda kaga maqnaydna waa kaga maqnayd marka ma garan karo waxa loo sii faaleeyo anigu ma garan karo taas mana garanayo beelale xataa anagu geemam kala ciyaareenaa kan maakhir maahe mid kala ciyaareenaa waa maqlaayay marka waxaan leeyahay ciddii timi waa timi shakhsiyadeeda ku timi aragtideeda ku timi cid la soo gacan qabto maaragtay ma jirto ciddii ka maqnaydna de waa maqnayd guulna waa timi sheekada wardaxaash horta waxay ahayd kaaba gabar yiraahdo abwaanada baa nimankiin saa u fiiriso waxay tiri nimankii singalka ah la isku mahalayn kare waqtigan waxaan go'aan ku gaaray gabar wardaxaash la yiraahdo oo de marka ay mala awal ka soo qaaday inaan la wadaago ninkeeda ayaan go'aansaday bay tiri marka maadaama anigu aan xaasiyaasha kamid ahay waxaan u doodayay gabdhaha aan maaragtay ay xaaskii u kamid tahay oo qofta liya kaaba ayaa waxaan anoo la hadlay waxaan ku yiri wardaxaash ninkeedu wiilkan weeye hadlaaya wax ma dheeri ragayga nasiib waa i haleeshay ooridayda wanaagsan ayaan waafi u qaatay miyarayn lagu waabto waqtigaan uma jeedo waxaan diiday masayrka inay xaasku wareerto walbahaar la daciifto dooni maayo walaale dooq ha isku walaaqin wiilasha kale raadso marka maansado aad bay u dheerayd intaas unbaa xoogaa ay dadku soo qaateen oo ay aad u faafiyeen marka gabadhii waxaan ku yidhi war heedhe singalkaa naga badane singalkaa kale raadso walaalay anagu waxa weeye waa degannahay maaragtay nolosheedu way isku dhisan tahay
marka bal meelaha kale u leexo rag badanna way igu macaaradeen waxay yidhahdeen maxaad gabadha nooga eridi marka waa sheekadaas halkaasay ka timi oo waqtigaasay maaragtay xoogaa dhowr week hor bay ahayd un waqtigaas soo galay weeye tiktokna waa meel aad cajiib u ah aan idinla kaftamay nimankiina tiktokerada ah waan arkay tiktok saasaan u fiiriyo meeshu waa meel cajiib ah maanse aan ka qoray baa jirto la yidhaahdo maanse aan ka diyaariyo la yidhaahdo waxaa kamid ahayd mar waa lagu cararayaa mar waa laga cararayaa mar waa la iscayrsadaa mar waa la iscaawiyaa mar waa la isciilayaa mar waa lagu ciil baxaa culimo dhowraa fadhida codkeeduse waa daciif cududda shaydaanka iyo culumta kalaa ka badan ha waxaan idhi cidina gaaruma laho ninkuu giftar caawiyaa calanka guusheeda sida meeshan cid sheegan kartaa ina shiino u sheegaye qofka uu giftar ku caawiyo unbaa meeshan awoodeeda iskale giftarkuna isagaa lacagtiisa iskale qabiilna ma xukumi karo cid kalena uma yeerin karto wax qofka giftarka ahi isagaa awood ule cidda uu wax siinayo marka